xalay ilaa maanta Soomaaliland waa fayral wixii warbaahin caalamka ka warami jirtay oo dhan waxaan Soomaaliland hayn maadal hayaan waxa ku jira warbaahinada weligood Soomaaliland afkooda soo marin iyo Afrikaba haday ka hadlaana dhif iyo naadir waxay soo dhigi jireen halka u hooseysa balse Soomaaliland wax ku daabaceen headline ku saray waxyaabaha cajiibka waxa weeye waxa soo hadal hayna Soomaaliland $1 kuma bixin balse dunidan isdheelan rogaysa ee si badweynta u kacsan iyo awoodaan isriixriixaya ayaa Soomaaliland fadhiga ugu adeegay iyadoo halkaas ka fadhida kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu helay xogo oranaya Ethiopia iyo Imaaraadka ay aqoonsanay Soomaaliland naf xarbigii wuxuu isku sii daayay Imaaraadka balse Maxamed bin Sayid uu ogaa inaan wax kale hadlayno uu ka cudur daartay inuu la kulmo Erdogan isla habeenimada ku xigtay wuxuu isku sii daayay Addis Ababa Abiy Ahmed buu la kulmay isagoo baryotamaya labadii bilood u dambeysay 3 jeer buu Erdogan ka hadlay Soomaaliland isagoo tobankii sano u dambeysay afkiisa aan hal mar soo marin Soomaaliland waxa keenaya inuu arkay inay Soomaaliland aqoonsigeedu dibadda yaalo sidoo kale in board laga creeyay Soomaaliya oo ku tiri dhul baan ku siinay biyaan ku siinay waliba isagu biyuhu doonay waa biyaha Baabul Mandab wuxuu aaminsanaa haddii Xasan Sheekh uu saxeexo badda Soomaaliya ilaa iyo waxa tagi kartaa Baabul Mandab waayo biyaha Indian Ocean ka isagu waxba kuma falay waxay ku noqotay u qaadan waayo sababta Soomaaliya loo heshiiyay kaliya waxay inuu helo Baabul Mandab wuxuu la Xasan Sheekh maadaama ku saxeexay uu haysto laysanka sharciyada Soomaaliya Baabul Mandab adiga ka taliya hal maalin ka bacdi aqoonsiga Soomaaliland khudbadda isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ku wada qabteen Ankara uu kibirsan wuxuu lahaa ma aqbalayno aqoonsiga Soomaaliland mar labaad usbuucii hore wuxuu tagay Sacuudiga isaga iyo Maxamed bin Salman ayaa waxay si wada jir u diideen aqoonsiga Soomaaliland balse ugu dambeyn markuu Addis Ababa soo gaaray waxa ka muuqatay inuu soo quustay inuu ogaado in Soomaaliya waxba ka qaadi karin Soomaaliland sidoo kale inuu ogaado Soomaaliland inay xulafo waaweyn haysato hadda uu baryotamaya hadda wuxuu iska dhigayaa nin waayeela oo talo soo jeedinaya ugu dambeyn Soomaaliland way guuleysatay fadlan video share gare akoon kuna soo follow gare thank you so much